كي خيلي يا خيليو أنقل كان كو خيلي مايو وكاسي نما عبسني والو عبسدا. بسم الله الرحمن الرحيم. dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogaan maanta waxaan leeyahay jumco wanaagsan, jumco mubaarak, jumco kheer, ilaahay ha noogu dhigo. caawa waatii ahayd balanteeni barnaamijka aada sugayseen oo la magac baxay xuriyat al qowl. fikradaasna waxaan ka soo qaatay magacaas saaxiibkayga qaaligiigu ah cabdulqaadir zeyn. intaan barnaamijka idin bilaabin waxaan hordhac idin sheegaa, waad la socoteen wiigii hore in aan soo bandhigay barnaamijkii aada iyo aada loogu bogay oo ahayd digniin iyo dardaaran. marka caaw waxaan idin hayaa 3 fariin. fariinta koowaad waxaa waaye waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay cawada bilada koowaad oo laysoo diray ama fariinta oo weli ayadoo originaal ah oo iisoo direen madaxda guddoomiyaalka guddoomiye kamid ah oo joogo dalka Switzerland. danaystow duugaagu waa daldalaadan dacwa lahayn 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 saaxiibkayga guddoomiye Abuukar waad ku mahadsan tahay fariinta aada iisoo dirtay ama laguu soo dhiibay oo aada iisoo gudbisay, waad ku mahadsan tahay. laakiin u sheeg fariintan waa fiican tahay, ninka soo alifay ama ninka keeni nadiif ma yahay? anigana caawa waxaan siinaa jawaabtiis. hadhow waxaan ka codsanaa qowmiyadda banaadir group kasta ama urur kasta meel kasta ay joogaan qoraalkan laysoo diray iyo waxa aan soo dhigay barta bulshada oo macluumiidii halisku fiiriyo yaa qaa'in ah yaa qaa'in ahayn. waxaa kaloo idin hayaa fariin ay soo direen 2 nin qaali igu ah inay soo wadaan 2 barnaamij kala ah. kow saaxiibkayga cabdulqaadir zeyn wuxuu soo wadaa barnaamij la dhaho daandaansi iyo dacaayad.
waa kaas la socda markuu soo baxo anigana waa soo daynaa asagana wuu soo daynayaa ko iyo saaxiibkeyga nuur amiin yaaska wuxuu soo wadaa reer banaadilow doqon iyo dabaal kee dantiina ku jiraa marka labadaas barnaamij aan sugeynaa haddana barnaamijkaa noo bilaabday kii kheliya kheliyo aan kolkaan ku kheyli maayo waa kaase nimaan cabsanin waa loo cabsadaa intaan orodhaay ahayd hadda barnaamijka kusoo dhawaada barnaamijka wuxuu ku socdaa saddexdan qabiil ama afartan qabiil afarta qafood aan soo saaraayo inaysan masali karin aniga aragtidayda caawa barnaamijkeyga waxaan ku furayaa hees uu sameeyey ustaad axmed haaji oo ku jirtay riwaayadii jaceyl faqiir galima fududo marka waxaan rabaa heestaas oo noo qaadi doonto ilaahay u naxariisto walaasheena faadumo qaasin ilowle beedkaasne wuxuu quseeyaa oo ustaadka markaas uu tilmaamay maanta aana dhuxuusa horta ku soo dhawaada عجب وايه عرضان قفكي عسيسك عمري قيسكو عيب الدنيا عين كستا وأركاي عجب وايه عرضان قفكي عسيسك عمري قيسكو عيب الدنيا عين كستا وأركاي okay waad maqasheen heesti marka caaba heesta waxay tiri allah yarxam faaduma cajab waaye caradan qofkii casiiskay cindigiis ku simee waa ninkii cumar dher ilaa siiyo ceeb adduun iyo ceen kasto wuu arkaa macnihiisa waa kasi kartiin kow waxaan ka bilaabaa milkiilaha tv-ga cusub oo hadda reer banaadir loo sameeyey oo ama facebook ah ama youtube-ka kusoo dhawaada horta ismaqla codkiisa yani ummadii maya naga fiirsanayso fiiri adiga ko aniga labo iyo soddon meeqa waay soddon laba qafood waa mogtahay ha intaas malyan adduunka naga fiirsanay yani baashi iyay naqanin sida aljazeera oo kale itijaabo cakis oo carabta lagala celinayo iyay naqanin waxaana ummad inaan tusino wax dhaxal gal ah midda aan rabo waxa waa inaan kuu sheego meeshaan annaga midooga qowmiyadda ama dalada banaadiriga ee saxaafadda waa mid madax bannaan madax bannaan waxaan ka wadaa adiga ra'yigaaga aduu kuu gaar yahay annaga ra'yigeeni kuma hadlaysid annaga ra'yi gooni aan leenahay dadkana ra'yi mid gaar waaye marka kaali waa la ixtiraamaa keeni waa la ixtiraamaa kan kalena waa la ixtiraamaa waxaa naga reeban aflagaado qabyaalad magacyo naashaysid hebel heblaayo hebelaas ahay waxaas waa naga waa inaan ku soconnaa xeerka saxaafadda sharciga aan ilaalinaa waa mahadsan tahay injineer zen warkaaga waxaa ku jiray aflagaada ma ogoli xoriyat alqool kan good marka zen
waxaan geysanayaa booska afaraad hadda codkiisa waa maqasheen waxaan bilaabayaa dhinacii kale barnaamijka markaan gudaha u galno qof la arko af soomaaliga aad maqli doontaan ha u qaadanina tafatiraha macluumiidii inuu soomaali ka siinin qof la arko waa af soomaaliga sow u soo qoray bliis waxaa idinka codsanaa telefoonka waa yar yahay haddaad ka fiiri kartaan youtube-ka qof la arka af soomaaliga sow u soo qoray aa laga hadlaa horta adduunka waxaa ugu xun inaad weligaaga hal dheg aada wax ka maqashid waana ceeb qafaad taqaanidna inaad inkirtid oo kaaweyn oo waalidkaaga aadan waa ceeb waxaadan aqoon u lahaynna haddaad geshid waxaad kala kulantid aada leedahay ku soo dhawaada ninka ururka bibi banaadir oo naagtiisa caman u haysto marka horeba burinaayo marka horeba soo celinaayo marka horeba xafiiska xiraayo marka horeba xafiiska ka furaayo caqligiisa maangaabnimadiisa iyo af soomaaliga uu qoraayo ku soo dhawaada maclow tixsi duulayow qof wax ma u ogola xitaa ninkii isku dayay inuu dadka u dhaxeeyo maclow iyo shacabka reer banaadiriga marka maclow mar hore ayuu wuxuu aflagaadeeyey oday banaadir haddana uu dowladda federaalka u fadhiyey ama u joogay safiirka Soomaaliya imaaraadka u fadhiyi jiray waagaas uu aflagaadeeyey marka odayaasha wuu soo magacaabayay xitaa uma aabba yeelayo xitaa wuu aflagaadeeyaa uu been kuu sheegin qof wax lagu tilmaami karo marka warkiisa meesha ku xir yuu ku waa maqasheen lama war oo soo duubay wuxuu yidhi oday banaadire ma xumo ilaahay wuxuu yidhi xaqa dhow ha ahaado dheer ha ahaado waa la soo daahirinaa maanta ninkii asaga abaalku u galay asoo shingaani xooran dukaan video oo shaqa ka sii haatin video oo weli safiir keena waxa keena ma xumo jazaak allah kheer waajib waaye shaqoo ku sii laakiin caawa adiga wuxuu tiri waa aflagaadeey ana cid ma aflagaadeeyo cidna ma gardaraysto macalinkaaga ama booskaaga wuxuu sameeyaa laguu sheegaa markaatidana waa nooyihi kulligooda ko camar jaketi ayuu dalka imaaraadka carabta keenay hal bilow hoteelku haayay wuuna ka dhuuntay asagoo u dhiman bixitaankiisa 7 casho fadhi waxaan ku qaadanay aniga maxamed macluul nuur ah saaxiibkeyga axmed shaamo 2 saaxiibkeena milkiilaha golden hotel berigaas u ahay shariif axmed shariif shiino anina maxaa la sameeya ninkan 7 beriga haduu bixi waayey maalintii 100 dirham aa laga rabaa ninkii kunsulka ahayna waa ka dhuuntay xaaji calwaan waa noo yahay waa la warsan karaa waa isqeybinay waxaan isku qeybinay shariif axmed wuxuu yiri 30 cabo hoteelka anaa qaati ilahay khayra ku siiyaan dhahay axmed shaamo waa soo booday ilaa 4500 oo ku kacay raajooyin la saaray iyo daawooyin kaliya la soo siiyey wuxuu yiri macluw anaa dhiibaa anigana waa soo istaagay waxaan dhahay caamar soo baxaan dhahay shoppingkaada wax allaala waxaa rabtid hal boorsa oo 20 kiilo dukaan allaala dukaankaa dubay rabtid waxaa rabtid soo qaado weli wuxuu ku darsaday mikrofon waad warsan kartiin caamar meeha uu geeyey iyo meeha loogu talagalay aniga asagaa is og 2 isla cawadii oo caamar habeen dambe ama baxaayay waxaan london aan kasoo wacay
doctor khaalid maxuu waxaan ku iri ninkii caamar waa kan haddou baxooyaa dhibkaana dhacay waa cudub ilaysti war maxluu see waxa u jiraa warkaana wiri ma aaminaye caamar jaketi waa kanaan dhaha la hadal wixii lagu sameeyey caamar markuu u sheegay khaalid waa naxay waa igu soo celiyey maxaa loo baahan yahay sir lacag ma soo dhiibaa mayaan dhahay go-aan waa la gaariyaan dhahay shariif axmed shiino hoteelka u dhiibi ina adeerkiisa axmed shaamoone ilaa 4,500 oo daawo u dhiibi anigana boorso iyo shopping iyo wax kastaan dhiibiyaan dhahay ninkana beriya u buxooyaa ko weli waxaan kaloo kugu daraa mister macalinka waxaan kugu daraa xamar 2015 aniga markaan aaday hotel shamo aan degnaay waxaad warsan kartaa caamar jaketi ibrahim shamo asad shamo aan joogni habeen waxaa la sameeyey intii reer shingaani ah afur shariif axmedna waa yimid cabdiqaadir sheekheyna waa yimid markaan arkay caamar oo kula dhegaya cabdiqaadir gooni aan warsaday caamar waxaan dhahay caamar oo see camal ninkaan ninkii baano waxasil macloo waa kaa iloobay ninkaan waa yimid waa soo hoyday xaalna waa u dhiibi anigana waa cafiyey hadda labadiina maashiisteen ahaa jazaaka allah kheyran dhahay arrintaasne saasay u dhacday ninka kabaa u qaadaysid saasuu sameeyey marka waxaan ku leeyahay qabiilkaaga ha ceebeenin adoo kale oo bibi banaadir ururka madaxa qabiilkaada ugu jirtid ma ugu jiri kartid markaa artidna waa xerey markaa artidna waa furey iyo waxaan ku warsanaa sababtaa u diidi bibi banaadir oo lacagtooda dhiibooyaan oo sharci waddanka ku leh inta beela lagu dhajiyo meehaas macnihiis maxaa waaye yani lacagta suuq madooba ku qaadanaysaa marka qowmiyadda banaadir aad noo sheegaysin ama dhalinyarada aloo dhimanaa qashinkaan camalaa joogaay ko taasna meehan ugu baxay tan labaad waxaan idin baraaca wada doctor daaxuun oo magaca qabiilka baafadal ku qaraabdo oo soo nooleeyey dagaal dhex maray aniga iyo camuudi oo si kale u fasiri marna wuu inkirayaa marne wuu qiranayaa marne wuu oynayaa aniga ma hawle codkeyga dagaalkaasna shaksi ma aha waa arin masaajidka aan isku qabanay berigii ama cadda la jajabinaayey aan aniga iyo odayaal isku qabanay arrintii soo kale u bedelay anigoo wax ogeen mar wuxuu ku leeyahay hebel oday camuudi ah anaga noo soo hoyday marna wuxuu ku leeyahay goorma anigi iri hebelaa soo hoyday marna wuxuu ku leeyahay jadoogeyga professore aa loo soo hoyday marna wuxuu ku leeyahay aniga ma aha marna wuxuu sheeganayaa guddoomiyaha reer baafadal marka intaas kaliib horta maqla kusoo dhawaada xaaji abuukar oo maskiin ka yimid ayaa tiri doctor saalax ayaa raaligelin noogu yimaaday war ilaahay ka cabsada beentaasna oo ummadda ku marar habaabinaysid doctor saalax ayaa raaligelin noogu yimaaday war ilaahay ka cabsada beentaasna oo ummadda ku رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد dhammaan ahl baa fadal meel walbo aad caalamka joogtaan guud ahaantiin waa wada salaamantihiin salaan kadib waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay kalfadhigii maanta ka dhacay dalka UK oo waalidiinteena kulmeen doctor saalax ciidruus alcamuudi iyo sidoo kale waalidkeena ama odayga baafadal al-ustaad abubakar cabdiraxmaan baafadal oo yani maasha allah tabaaraka allah farxad weyn inoo ahayd in ay isku afgartaan dhammaan khaldaadkii dhaceen khaldaad ma dhihi karno laakiin suu tafahamkii dhacay dad walaal ayaa nahay
waxaan loo baahan yahay mar walba maasha allah tabaaraka allah siduu ilaahayna faraayo wactasimuu bixablillahi jamiican walaa tatafaraquu. aayadda kalena waxay leedahay tafaruq waxyaalahaas markuu yimaado watadhaba riixukum. marka jazaakum allah kheer insha allahu tacaala. hadda caawa waxaan u joognaa halkan in insha allahu tacaala galfadhiga walaalaha dalka Holland kusugan iyo walaalkeena Dr. Mustafa Saalax Ciidruus oo goordhow halkaana anigoo ku hadlayo magaca odayaasha dalka Holland galfadhi labaad oo halkaan ka dhaco. sidoo kalena insha allah sida abtigeena Baabi Xaaji ka dhawaajiyay galfadhiga kale xigana inuu UK dhammaan reer Shingani guud ahaan biidnillahi azza wajal. maanta kulan fara badan ayaan lahaa. midda koowaad waa ahayd jaaliyadda banaadiriga. jawi degan oo wanaagsan ayuu kusoo dhammaaday oo is afgarad ah. sidoo kale kulanka labaad ee walaalkeena Dr. Mustafa Saalax waxyaalo badan ayaan ka wada hadalnay. wuxuuna ii sheegay in waalidkiisa asaga ka weyn uu lasoo hadlay. waalidkeena noogu weyn dalka Holland Dr. Jiddo Yaxya. Dr. Saalax ayaa wuxuu soo wacay Jiddo Yaxya raalgelinna wuu ka bixiyey khaldaad haddii ay camuudiga dhankooda ka tabanayaan ama ka sheegayaan maadaama ictidaar la rabay. ictidaartaasi way soo bixiyeen. annagana Jiddo Yaxyo sidoo kale wuxuu yiri annagana dhankeena hana laga raali noqdo dad walaal ayaa nahay. marka waxaan kuu sheegayaa qofka aad la hadlaysid waxaa loo baahan yahay inaad afkaada soo samaysatid. waxaan ahay hogaamiyaha guud ee Ahl Baafadal. mansabkaasna adiga iima dooranin. waalidiinkaa waaweyn oo ixtiraami cizi iyo sharaf mafruud inaad siisid mudan ayaa mas-uuliyadaas culus i xil saareen. marka aad baan ugu xumahay in qof adiga oo kale ah aan munaaqasha aan la sameeyo. abtiyo salla cala nabi. codkayga ma ahan waxaan codkayga ma ahan anigoo ku hadlaayo magacayga iyo magaca ku-xigeenkayga kan guddiyaasha reer Baafadal ee 5 qaaradood ee adduunka ku kala sugan kan xubnaha halkan sida tooska ah ii maqlayaan hadda iyo kuwa ii maqli doonaanba. anigoo ah xogayaha guud ama guddoomiyaha guud ee guddiyaasha reer Baafadal Holland iyo khaarij Holland. abtiyo waa ku salaam. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib waa kahay insha allah kun raadi halays cafiya ilaah idinkiisa raalli noqo hadii khalad xaggeyga ka dhacay. anigana cafis iyo masaamax biidnillahi caza wajal. shukran. marka sidaa darteed markii ay fadhiisteen ama guddiga Holland ma asaga ka soo jeedo go-aankay ka soo saareen maqla. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أبوكر حاج عمر بسوري كان ميت جوجيتا هولندا كديسان. أنا كهذا اللي مجا جوجيتا هولندا كديسان وحاول كورا عن جوجيتا هولندا كديسان إننا أو ورعت كسو جيدنا وحيو باب حاج نسويدي أنو ندت كعبسيبي إله ما نخوف كعبسينا مالله وحي إله نلوك أغني هاد أنت كشاكين خوف كس بافضل ديكا ينديكو وعادين هادي أنو كميدني جوجيتا هولندا كديسان. أنا هذا مجا جوجيتا هولندا inaa maxamuud yahay guddida guud oo baafadalka dhisan oo isku sawiriday wixii oo kasoo galay wadanka wixii daday oo baafadal aruursheen oo wadankoo indiraan ehela wixii orson qabtay lahay. maxamuud ma aha guddida guud oo baafadal oo dhan mitliibay ilaa hadda anuun guddi guud oo baafadal oo dhan mitliibay ma qabno. dooni inaa sameynay kaabakhawiil baafadal mool isku riicin waa tii gadaal aan dhigi la dhayi gadaal indhiki wax kale hadda anuun ognihi male. maxamuud waxay gudita oo guud oo Hollanda oo isku dawriday wixii lacag kharsh xagga dhaqaalaha oo wax ninka qabay walaalaashu oo wadamaayta oo dhibaato ka jiray oo ka nool. dhammaan qowmiyadda banaadir waxaan u sheegaa daawada reer banaadir waa la helay. qabiil la arko hadday saas u sameeyaan ninka iswaalwaalaya la celi waaye ceebtiisa
saas soo bandhigaan asaa banaanka soo baxaa waana soconaysaa qowmiyadda banaadir hadda waxaan ka yaabanahay qolkan qadiyadda banaadir intaas qafood sheikh iyo shariif mutacalimiin iyo wax kasta ku jireen yani wiilkan yar hadda cawad maxaa aragteen afkiisa maxaa ku maqasheen asoo tuugtamaayo alis cafiye ku raaday abtigeyga baaba xaaji a yiri codkeyga ma aha guddoomiyaha baafadalaan ahay camuudi iyo baafadala isgaleen goor baan dhahay iyo cawada shirweynaa dhacay saalax cidruusaa soo hooyday wiilkiisaa soo hooyday waa maqlayseen marka ninkan waa jiran yahay waa jiran yahay culammada iyo ashraafta ha u duceeyaan cawada jumca waaye faataxa u mara annaga haddaan nahay heer baafadal cawada waa idin keennay ninkeena xumaay miiskaan soo saarnay qabiilada kalena waxaan ka codsanaa nin kasta oo xun saas camal oo loo celi waayo in saas maxkamadda loo soo saaro codkiis iyo xusabeya oo la keeno inta odayaasha dhan oo reer banaadir oo isku level aan nahay oo aan soo wada shaqeynay oo dalka gudihiis iyo dibaddiis aan madax ku leenahay waxaa idinka codsanayaa in aad tixgelisaan codsigayga ninkan baafadal ma maseli karo baafadal haddaa usoo baahatiin rag odayaal waaweyn ayaa jooga aadna soo xiriiri kartiin min fadlakum walaalaa nahay hal xaafadaan ka soo baxnay waxaan idinka codsanaa codsigan inaa ii tixgelisiin weli anoo naceeb aan u qabin dembiyada uu sameeyey waad maqasheen waa nin dembi lagu haayo ninna markuu kadaa'ib loo yahay naclad ilaahay ku dhacday marka taas meehan oogu baxay hadda waxaan soo galaa ninkii aada sugayseen ninkii ku adeeganayay saddexda qabiil dadkooda oo remote control camal uu wareejinayo iyadoo maqli muuqaala marka waxaan rabaa engineer zen adaan kugu bilaabaa ko waad la socotaa barnaamij live macnihiis waxa waaye wariyaha iyo ninka live ka fadhiyo ko two iyo ummaddii telefon soo dirto ninkiiba in la siiyo 1 daqiiqo 2 daqiiqo okay aniga intaan wariyaha kula fadhiisanin waxaan ku warsaday 4 su-aal waana ii duuban tahay waa haya adna way kuu duuban tahay ko waxaan ku iri zeno aniga adiga hore waa kukasaa waxaad eede goormaad wariye naqati waxaad tiri macluum wallahi anigu waa dadaali waxaan aadi librariga waxaan soo akristay sharciga wareynimada waa soo bartay sharcigana waa kasaa good habeenkii aan kula fadhiisanayay 3 su-aalaan ku warsaday haddana waa kugu soo naqaa ko mar aan ka hadlaynay dhalinyarada banaadir maxaa loo yasaa iyo maxaa odayaashaan iyo wax sida camal waxaan ku yiri aniga dalkan ingiriiska waxaan ku arkay 4 caruur haddaad ingirtid dib kuu soo saaraa ko waxaan ku iri cabdikariim karaama sidi xaaji waxaan ku xijiyey baazi xaaji busuri waxaan ku xijiyey cabdulqaadir khaalid maco waxaan ku xijiyey xamza shariif sayidi miyaa shariif sayid maxamed oo xildhibaanka ajir wiilkiisa xamza 4tooda aan arkayaan ku iri oo maanta u baahan in jug yar leela siiyo shaqadan oo reer banaadir inay qaban karaan waad soo boodi waxaad tiri adiga macluum ilmaha madaxda le maxaa u amaantaa ilmo kaleba waa jiraan waxaan kuu jawaabay aniga maxamed macluum ahay wiillaan qaba aan ku iri wiilashayda levelkaas ma gaarin maya wax kalaad ugu deen laleeh waa kaa aamusi warkaaga daay wuxuu ku jiray magac ma sheegi karid waa xasuusataa waa ii duuban yahay waxaan ku dhahay dhacdada ugu darneed ee xamar ugu xumeed waxay ahayd 2 nin reer banaadir inay u tartamaan guddoomiya ku-xigeenka baarlamaanka ceebaan ugu dhacday aan ku dhahay
waxaa tiri sheeg yaa waay waxaan ku iri hal waa adinka halna waa dad kale kulli banaadir le waay maya tiri ilaa ilaa magacooda sheeg dhayle balanteena meeno ku dha wax magaca sheegin maya ilaa ilaa sheeg waan kuu sheegay waxaan ku iri jalaan nuur igar iyo khaalid macow labo okay barnaamijka adaa daadiinaysi seed ugu ogolaatay hal nin oo reer banaadir ahayn oo koonfur galbeed ka socdo inaad siisid 43 ka badan hadal oo hadalkiisa leh oo weli amar iyo aflagaado iyo caay ku jirto haddana waxaan ku tusaa amarka lagu siinayo waxaan ku tusaa hadda amarka lagu siinaayey ayadoo qoraal ah oo weli markaati ah oo weli waxaan ku faraxsanahay ummadda ugu sheekey jiri professoraan ahay macalinaan ahay waan daaji af soomaaliga uu soo qoray ku soo dhawaada iyaa soo mar dhiibayo xamar goormee kuugu dambeysi tan laheyd 114 aan aqaanaa yaa kaa dhegaysanayo qaylo wax ma lagaaga dhegaysanayo deganaanta maxaa kuu diidi hadda la joogo run haddaad rabtid hogaamiye ma tihid beeley keen fadlan dadka qaarkood ha yasin dhaaf warkiisa waa fiican yahay sax ha lees qaybiyo maclow kee yahay adiga dadka qaarkood ha yasin dhaaf wasiirka waa fiican yahay sax ha lees qaybiyo cabdiqaadir sax weeye sax cabdiqaadir reer xamar uma baahna war keliya uma 100 sano waxaas oo dhacay qaaf rabag axmed sax maclow is correct about what he is hoos ayay u dhigtay tuntii dowladda weligaa qof ma ka hadashay seen maclow barasho aa noogu dhiman weligeed banaadir xaggeed ma maclow iyo seen riwaayad ma dhigoosiin beenta ceeb weeye high school ma ka soo baxdi maclow kulliin cafis laakiin right beeley keen fadlan waxaas ma maqli kari bye waqtiga saas uu ku dhumooyaa cabdiqaadir sax waaye maan mahmuud life diyaar ma u tahay shaqsi weerar waa mamnuuc okay waaye beeley waan raadinaa saaxiib isgow waxaad tiree waxaan ma maqli karo ee maxaa ku soo celiyey kkk bye caawa dhan waxaan u soo jeeday waxaan u malaynayay in marko caddeey xaaladaada laga hadli doono beelshanaad nimo okay hadda waxaan galaa macalinka haddana fiiriya asoo ka dhex wado fidno muqdisho iguma sibir.com raxmaan raxiim dhammaan culimaadudiinka dhallinyarada ool waxaan idinku salaamaa salaanta islaamka maanta aan iskugu imaanay maalin kheyraad masaajidka jaamacadda ee degmada xamarweyne horta waxaan rabnaa inaan u ducayno masiibooyinka wiigyadan ka dhaceen degmada xamarweyne ee ka dhaceen gobolka banaadir aniga macalinka aada warkiisa maqlayseen 2 su-aal leen noogu jawaabaa bes wuxuu yidhi 1 high school kusoo dhigatay koo iyo hadda la joogo hogaamiye ma tihid ma xumo horta iskuulkaa kaaga jawaabaa ani iskuulka waxaan ka soo baxay iskuulkii ugu horeeyay soomaali oo qabiil lagu dhigto oo ninkii damiin oo qabiilkaas ah la geeyo oo la dhexeeyay dugsiga hoose dhexe kor jaamacad kulliya all iskuul leahay oo ku aan lahayd degmada shingaani oo la dhahayay sacuudiya airlines oo 6 shiiqaalka shaqeynaysa bes kaasaan ka soo baxay
jawaabta labaadna waxaa waaye aniga haddaan rabo inaan ka dhaqdo hogaamiyii banaadir horta adoo kale ma warsanahay waad ogtahay ummaddana way ogyihiin aniga maanta waxaan u baahdo ummadda soomaali madax kastoo u tago wuu ii istaagayaa heybadaas inaan leeyahay oo ilaahay isii adigana waa ogtahay marka taas waxaan ku leeyahay adoo kale haddaan hogaamiye u baahdo wax ma warsado banaadir anaa kaaga dhow adiga waxaad ka tahay gobol kale ama degmo kale ku bashaaraysa kaas ani adiga waa isna qaaraa ogtahay dhowr marna inaan isku dhacna waa ogtahay waad ogtahay aniga bahaa iyo show off iyo museya in lay marsi karin marka waa ka xumahay jawaab ma u baahanteed inaan kuu jawaabo jaa af soomaaligaaga qoraalkiisa waa la arkay oo magacaada ku qoran oo amar dhiibeysid ya marka reer banaadir dadkaasoo kala hayna anaga aday ku jirtaa bay waxaan rabaa zayn inaan ku warsado ilaa 5 eray iyo 6 eray inaad ifisirtid maadaama aad tahay milkiilaha barnaamijka aan dhigeynay beeley hala keeno hala isqeybiyo dhaaf waa fiican yahay aniga waxaasoo kale ma maqli kari maxlo iyo zayn riwaayadaad dhigoosiin xamar goormaa kugu dambeeyey qaaf rabbak waxaasoo kale ma maqli kari waktiga saasoo ku dhamaaday adigana halaata ugu soo jawaabtay bes oo eed aflagaado ma ogoli ko iyo beeley waa raadina marka barnaamijka aniga ad igu casunti barnaamij ummad wax loogu faa'iidinayo maas ahay mas maxkamadii sadaam xuseen oo sadaam markii maxkamadda la keenay wax kastoo sheego laga akrisi waayey markhaatiyaal loo keenay cod nooc kale loo keenay taariikh waay waa qoran tahay marka waxaan rabaa macnihiis inaan fahmo aad iisoo fasirtid beelley ha loo yeero adigana waxaa tiri waa la raadinaa amaraad qaadati hala isqeybiyo amaraa lagu siiye hala isqeybiyo macnihiis maxaa waaye amar qaado waa dhinacaas kasoo bax dhinacana ka imaana waaye waxaanoo kale ma maqli kari amaraa lagu siinooyaa rawaayad adigoo siin aniga waa seexana marka intaas su-aal oo asaga ka hadlay aan rabaa ina agaga soo jawaabtid haddii tv-ga adiga leedahay oo banaadir leedahay iyo hadduu asaga leeyahay iyo markau dhahay waktiga saas oo ku dhamaaday aniga usoo jawaabay waxaan ku iri waxaa bateriya hebelow waa seexanaya maxaa kugu soo celiyey kakakakakakak ninka dhahayna waayo marka jawaabtaasaan kaa rabaa barnaamijkeena waxaa tiri xoriyadal qool waaye warkaaga ku jiray furitaankiisa nin la arka ra'yigiisa in la maqlo waaye aniga barnaamijka cawada aan soo dhigi ra'yigeyga saas waaye waxaan diyaar ku ahay inaan barnaamijkaaga aan soo fadhiisto diyaar waxaan u ahay inaan kugu casumo barnaamijkayga macloo media oo live ayaa soo galaa bisha 3deeda wax allaala waxaan kugu soo dhaliilay inaad soo diyaarsatid aan kugu casumo keyga iyo hadduu diyaar u yahay kaabaha sidaas iyo nabadgelyo walaalayaal barnaamijkayga waxaan kusoo gabagabeynayaa dardaaran gustaad axmed naaji oo ahayd cajab waaye caradan qofkii casiiskey cumrigiis ku simee ceeb adduun iyo ceen kasta waa arkaa waxaad kasoo qaadanaysiin kow barnaamijkii ahayd dignin iyo dardaaran oo kasoo qaadateen dad soomaaliya intaan sana degan oo hadda noo keenay reer banaadir ah inay dhahaan ninkii abartiisa soomaali ah qabiilkeena xaq kuma laha kow cawadan waxaan idin haynaa sheyga ugu cajiibka badnaay adduunka oo ah oo reer banaadir lagu arkay oo ah whatsappka groupka qadiyada banaadir ninkii soo galaayo waa inuu keenaa kow 3 markhaati inuu yahay qabiilkaas 3diisa magac baasaboorkiis iyo adresskiis kaas waa wax aada iyo aada loogu farxo yani heerkaan ka gaarnay ilbaxnimada
sidaas iyo nabadgelyo Lord, I shall